ay intaan hadaad jirkaaga ku dhaqanin waxweyn baa ku dhaafay gabarey. Waxaa idin wadaa jadwalkii isbuuclaha oo iskiinka ama maqaarka la nuurinayay la isqurxinayay hablo fadhiga ka kaca haddii aad tahay gabar aroos gali rabto ama hooyo umul ka soo baxday xataa haddii aad tahay dadka jecel inay isqurqurxiyaan waxaa idin leeyahay ka faa'iideysta oo alaabtan jirkiina ku dhaqda oo maasha Allah haddii aad isbuucii 2 jeer bis kaga dhaqatid maqaarkaaga qurux ayuu ku noqonayaa. sidoo kale kareen dabiici ah jirkaaga qurxinayo maqaarkaaga dhalaal fiican siinayo difin fiican siinayo cadaan maasha Allah ku siinayo ayaan kaaga faa'iidinayaa. xataa haddii aad jeceshiin inaad ka ganacsatid waad samayn kartaa maasha Allah tabaaraka Allah. ka faa'iideysta idin leeyahay waa muuqaal idin muhiim ah. like-ta ugu dadaala, share-kana waa xaggiina. waad mahadsantihiin. ka faa'iideysta body scrub iyo body cream. okay idin qurxin doono. waxaan ka sameeyay alaabtaan u jeedaan inta waxaan soo dhigtay baaquli waxaan ku soo darsanay caro white. kani caro white waaye wax ma cadeeyo laakiin kareemaha ayaa lagu dardarsadaa. okay kareenkan dadka qaar ma jeclo laakiin anigu waa iska jeclahay. kana waxaa waaye kareenka baabaayga aad u fiican yahay. kan originalka daashid good to go wuu fiican yahay. okay caro white iyo waxaan isku soo daray kareenka baabaayga saa u jeediinbo. waxaa kaloo ku soo darsan doonaa kareenkaas saa u jeediin faasliinta ah asagana aad u fiican yahay. saa horeen kugu sheegayba whitening ma aha laakiin maqaarkiina ama skinkiina wuu dhalaalinayaa cadaan dabiici oo maasha Allah ayuu siinayaa. marka kana ku soo darsaday faasliinka asagana aad u fiican yahay. intaas markaas ku keeno waxaa kaloo ku soo darsan doonaa garsaliinka aad u wacan yahay maqaarka difin fiican ayuu siiyaa uu qurxiyaa jacjac iyo waxaas ayuu ka saaraa maasha Allah. waxaa kaloo ku soo darsaday saliidan waxaa waaye carrot ka samaysan tahay aad u fiican tahay. noocyo badan ayaa jiro muhiim ah inaad tan haysatid. noocyada haysatid ayaa isticmaalaysaa kareemahana lagu darsadaa inta badan. intaas markaa isku soo darsaday waxaa kaloo ka maqneen tan ayadana aad u fiican tahay. waxyaara uga soo darsaneynaa gabdho alaabtan dadka intaysaan sameeyaan ee kareemo ama buumaatooyin laisku cadeeyo ee ku daraan. okay adiga haddaa jecesha saas waa yeelan kartaa buumaatooyin extra waa ku darsan kartaa daacadaan zaaid raadinaysid. haddaa iska normal tahay oo natural tahay oo jecesha inaad maqaarkaaga qurxisane just brightening fiican heshidne intaas isku soo darsanaysaa. kadib intaas markaa isku soo daray waa isku qasayaa si fiican baan isku dhexgelinayaa saa u jeediinbo. sidaan ciyaarta ah kuuma qasmaayo mashiina soo qaadanayaa waan dhex marinayaa. waxaan ku dhahay ka sheekeyn malaan kareenkan maqaarkaaga haddaa isbuuc bis ku wadid waa lagaa sheekeyn doonaa qurux dhaldhalaal maasha Allah ayuu ku siinayaa. madmadow maqaarka kaa saara xataa wuu kaa saarayaa ma garatay. marka kareenkan intaan marsanin ka hor waxaan diyaariyey scrub oo jirka ku dhaqan kartid isbuucla ah ama khamiisi jimcaha jirkaaga ku dhaqi kartid. alaabtan daily waa ma garatay kareenka maalin kasta marsan kartaa laakiin scrubka waxaan u sameeyay gabdhaha waxaa waaye jecel inay jimcadiis iyo waqtiga nafaas hayaan ay ku dhaqdaan skinka ama isku soo huuriyaan ayaa ugu faa'iideynayaa insha Allah. xataa adiga i daawanayso waa samaysan kartaa scrubka meela iska dhigan kartaa. maalin kasta scrub jirka laguma dhaqo laakiin isbuucii 1 mar ama 2 mar way wanaagsan tahay inaad si fiican ugu soo dhaqdid maqaarkaaga scrub. okay kareenkii waa kaasaa markaasaa soo diyaarisid waad marsanaysaa jirkaaga bac ayaa gashanaysaa sigsaan ayaa kula xiranaysaa. haddii aad dhibkaas dhan rabinne just waad marsanaysaa hora usii soconaysaa ma garatay. marka waxaan ku leeyahay I hope inaad ka faa'iideen qaybta kareenka. okay qaybta scrubka waaye kan waxaa waaye sokorta cad caadiga ah ayaan baaquli ku soo shubay. waxaan kaloo ka maqneen nila powder iyo kafee iyo shumburo oo wax yar ka bacdi intaas markaa isku soo daro saliid ama butter aan soo dhalaaliyay waay kan butter waay. okay butterka magaciisa iga maqan hoos ayaan kuu soo qora ayaan ku soo darsaday. haddii aad heli karin butterka waxaa isticmaali kartaa just olive oil ama saliid oo qumbaha. okay intaas markaa isku soo qarsatid waxaa kaloo ku soo darsanayaa saliidan
haddaa rabtid carrot oil ama vitamin C iyo waxaasaa kusoo darsanaysaa saliiddaa heli kartid ama coconut taa okay waaye kabacdi intaas markaas kusoo dar intaa maa jirka lagu dhaqanaa waa maya alaab yara kusoo darsanaya aniga jecelahay kareenkaana kusoo darsaday in mar walba waxaa jirkaaga ku dhaqaysa waa inuu difin fiican yeeshaa gabarey haddii aa wax qalalan jirkaaga kusoo dhaqday dufa kaa kacayso allergia ku qaadaysaa isbuuc dhana waxaan ku dhahay maqaarkaaga fiiqma ma garatay just waxaa laga rabaa inaad kusoo dartid wax difin leh marka intaas isku soo daray maqaarka ayaad ku dhaqanaysaa aniga qoorta ilaa lugaha ayaad marinaysaa 5 daqiiqa isku scrub gareynaysaa inta la tagto waa yani gloves xiranay oo ku scrub gareynaysaa kabacdi waxaan ku dhahay waad iska soo dhaqaysaa waxaan ku dhahay quruxdaada iyo dhaldhalaalkaaga shacniga waa laga sheekeyn doonaa ma sha Allah tabaaraka raxmaan soo tijaabiye idin leeyahay qaarkaaga soft ayuu noqonayaa sidii baby camal adiga dhan waa jeclaanaysaa haarufta iyo wasaqda iyo jacjac iyo waxaa dhan waxaan ku dhahay wada ku cuntay ma sha Allah alaabtan gabaray ha isku ilaawin isbuuci hadii ka dhamaata xataa soo iibso sameyso kareenka sameyso oo scrubka sameyso war fadhiga laga kaco hablo adinkoon baa isqurxin kare qurxi waa gacan ku hayn gabare ama waa gacan ku hayn insha Allah isku ogaada oo jidhka iskaga qurxiya de waxaan ku dhahay lugahaaga iyo gacmahaaga iyo hadii ay rabtid in la kala garan waayo alaabtaas soo tijaabi insha Allah muuqaalkan waxa waaye like-ta saara oo share gareeya lacag idinka maro waa free like-ta saara insha Allah dhiirgelin ayay tahay adinkan wax baa idinka faa'iideeyay saan jecelahay insha Allah marka muuqaalka la like gareeya meel fog la gaarsiiyo maanta waa jimco saliga nabiga hala badsado insha Allah khayr caafimaad baa rajeynaa maskaxdaada iyo jirkaaga waxa aad ka u daaliyo waa fikirka xad dhaafka ah isla barbardhiga iyo in amaanta dhan wax filanaysid kama filanaynin idinkama filanaynin dadkan saan uma maleynaynin expectationka iyo shakiga badan waa waxyaabaha maskaxda iyo jirka aad bini aadanka uga daaliya fikirka badan isweydii qor waxa dhahdaa waxaanan ka fikiraa waxaan heli kara miya mise waa waxaanan heli karin meel ku qor ka dhaadhacsii maskaxdaada waxaan aad ka fikiraysid ma aha waxaa heli kartid maskaxdu waxay rabtaa jabtarkaas inay xirto ku caawi inaynan heli karin alxamdulilah rabbil caalamiin wax alle waxayeen bi ilaahay baa ka weyn expectationka ina maanta dhan waxaas ma filan qofkani waa bani aadan hadaa wax ka yeesha alxamdulilah hadaa ka wax ka weysan wuxuuna naftiisa siin karin adiga kuma siin karo kama filanaynin intaanan ku sameeyo waa kugu soo tacabeela ama waxa dhashay ha noqdo ama qof aan nolosha la shargareynaysa ama qof aan wanaag ka filanayso kala kulmi weyse bani aadanku wuu isrogrogaa mid kugu soo aado aad arkaysaa maahane filashadaada kuma xirna shakiga badan sidoo kale shakiga badan yaqiin uga bax 2 ragcad ko ilaahu qalbigayga idmeenaan ii gali waxaan ka shakisanahay marka adduunyadu kuma dhisno based on maskaxdaada waxa ku dhex jira waxaan yihiin kana leeyahay sameeyna wali daba jooga shakigaas waxba kuma taraayo waaqic ka duwan outside ka ah marka xanuunkaas waa mid adigu gudaha ku jira maahane ma aha wax definitely dhici doona aka shakinaysid isla barbardhiga waa tan waxaanay qabtaa maxaanu qabi waayay isku meelaan ku noolaanay hal mar Mareykanka ka wada imaanay Yurub isku waqtiya imaanay waxbay dhashay waxba ma dhalin adiga adduunyada lagu ma keenin ina bini aadan la compete gareysid adduunyada waxa lagu keenay ina wax dhistid tacmiir loo abuuro aadamiga maxaa samaysatay individually naftaada ula xisaabtan ma aha daruuri ina qof kale u ekaatid allahumma barik ilaahu hebel waxaas ugu talagashay Allah u barakee heblaaye intaas ugu talagashay ducadaas aad u duceynaysaa qalbiga dhan uga sareynaysaa qof kasta intuu leeyahay waa heli kartaa hadaa qalbigaaga ka bixiso u duceysaa dhada ilaahi baa u qoray meeshan ma gaareen haduuna rabbigiisiin lahayn wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun